wadada weyn baan soo raacnay waxaan nimaadnay aagan oo dadka wada joogaan dhalinyaro 10 meesha ku fuulay oo ku saarnay oo ka mid yahay marxuun Cabdiweli hal calan baan wadanay magaalada halka calan baa yaalay calankaas aanu ka taaganay halka waxa ka soo booday laba qabaal waxay hayeen RRU laba qori baa saarnaa midkii ugu horeeyay wuuna dhaafa annaga aragnay oo xagga sare saaran dadkii bulshada ee dhulka taagnay dhalinyarada heedna waan u sheegnay waa la kala yaacay annaga iyo Cabdiweli annaga iyo dhalinyaradii kale waa ka soo degan waa ka soo yaacnay laakiin Cabdiweli wuu sii saarnaaday wuuna ku dhiiriday oo wuu ku sii dhiiriday si uu calanka u sii hayo calankii uu meesha ku sii hayay oo kor u sii taagay qabaalkii dambe qorigii weynaa saarnaa ayaa lagu toogtay oo lagu dhuftay halka intay kaga dhacdayba inta halka kaga baxdo oo inta goysay wuxuu ku duulay oo ku dhacay halkaas ninkii naga sareeyay calanka hay oo halka yaala markaanu aragnay waanu naxdin gelinay runtii waanu soo qaadnay naftu dhulka ula meendhicin ilaa gargaar gacmahaanu ku sidnay soo maskaxdiisa qubanayso dhiigiisana daadanayo si xun baan loo dilay dhakhtarka markaanu geynay dad baa rajo ka qabay laakiin anigu waan taagnaayo waan arkay rajo kama qabin oo halkaas ku nafgo oo naftu dhulka ula meendhicin halkaas araa laga toogtay adakaysan markii saaxiibkii la diray aad iyo aad waan murugooday meelaan joogan isma garaneen waan orday waan cararay markaan dhakhtarka geeyay xaafadayda inoo taagan baan sarkay mar dambe ayaan miirkaysi aan sir adu mala dhintay mise saaxiibka aad iyo aad baan u qirooday maalintii oo dhan ila ordayay halgankay gula jiray ila socday aad iyo aad baan ugu murugoosan arrinkaas ciidamada RRU iyo ciidamada militariga Somaliland ee aan u dhalan deegaanka waxa magaalada Laascaanood ka saaray shacabka markii ay arkeen bahalnimada iyo arxaan darrada ciidamada Muuse Biixi kacdoonka buluuga ka hor waxay ciidamada RRU habeenkii guryaha kala bixi jireen dad shacab ah oo aan hadda inta badan war loo hayn halka ay ku dambeeyeen ciidamada RRU hadda ma joogaan Laascaanood laakiin waxay magaalada gaarsiiyeen dhaawac weyn wuxuuna Muuse Biixi hadda u hub urursanaya sidii uu dhaawac tiri lahaa magaalada Laascaanood asxaabtii iyo dhalinyaradii ay laysay RRU-du marnaba diyaar uma aha inay ka tanaasulaan qadiyadooda ama calankooda laga dejiyo magaalada Laascaanood